xogta la baaray ba waxay sheegaysaa qofka caadiga ah in 60,000 oo fikradood ay maskaxdiisu ka shaqaysiiso maalin walba boqolkiiba 95 dhammaan fikradahaasna maalinta ku xigta ay noqdaan fikrado isku mid ah nolosha qofka hadba sida ay tahay ma ahan mid maanta oo kaliya sida noqotay noloshaasna waa mid ku xidhan 60,000 ee maalin walba soo noqnoqda kolba waxa ay yihiin qofkuna nolosha dhaqaale oo ku jiro hadii uusan ku faraxsanayn kuna qanacsanayn waxa ku xidhan tahay 60,000 ee fikradood ee maalin walba uu ka shaqaysiinayo wuxuuna u baahan yahay 60,000 inuu wax ka bedelo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا يوتيوب كهانتيلو ما أنت واحد نسليك دونا عقلية فقري قفك كديكتا صبور مركا كوبات أرجع عقلية فقرية أرجع عقلية فقري وقفك مركا أولية هي دبعضه أما أي شيران وحياله مسنية هي كواصو دمان قفك الشخصية دي سكو حيرة ورجع فقرية أما هل جنك نقال حمو xaaladda dhaqaale xumo dadka waxa ka saameeya waxyaalo fara badan sida sinaan la'aanta nidaamka waxbarashada dhaqaale oo qofka si qaldan loo baro iyo fursadaha dhaqaale oo aan meeshaba oolin kuwaas oo la oran karo way ka baxsan yihiin qofka shakhsiyadiisa ama aqliyadda qofka uu leeyahay balse waxa jira sifooyin aad u caana oo qofka faqriyada aqliga uu leeyahay sifooyinkan waxa kamid ah maskax xadidan dadka qaba fikirka faqriyada waxay dhamaantooda aaminsan yihiin in lacagtu ay tahay shay aad u kooban dadka oo dhan aan ku filnayn waxayna idhaahdaan oo caan ku yihiin anigu ma dawlad baan u shaqeeya lacagtu halkee iga soo gali dhanka kalena waxay idhaahdaan hadii uu qofku dawladda u shaqeeyo oo uu hantiba dhisto waxay ku caayaan ama ay ku xantaan in uu yahay qofkaasi tuug dadka hantidooda cuna mana oga lacagta u badan ee magaalada dhaxtaala in aysan gacanta dawladda ku jirin ee ku jirto shakhsiyaad magaalada jooga oo ka ganacsada qofkaasina wuxuu diiradda aad u saaraa baahiyaha degdega taasoo iyadu indhaha ka qabata waxa mustaqbalka uu qorsheyn karayo ama waxyaalaha uu ku qaban karo mustaqbalka hantida soo gasha ama lacagta soo gasha sifada labaad ka cabsashada khatarta fikradda faqrinimadu qofka waxay u diidaa isagoo on ka warqabin ama ay ka ilaalisaa si uusan wax isugu dayin ama uusan khatarba u qaadanba waxa jira fursado fara badan oo yaala magaalada aad joogto kuwaasoo ka yimaada dad bangi ama dawlad kuwaasoo iyaguna bixiyo waxa la yiraahdo maalgashi qofku fikradda faqrinimo hadii ay ku jirto fursadahaasba ma arko waayo haduu wuxuu ilaahdaa ama wuxuu ka cabsi qaba waxay tahay hadii aan qaatarmay khasaarta ariga labaad ee caan ku yihiin waxa kamid ah lacagtan hadii aan waxaan ku bixiyo armay iga khasaarta ma aad dib igu soo celinaya isla qofka hadii aad weydiiso sanadka bacda oo tiraahdid war lacagtii ma haysataa wuxuu kugu jawaabi doonaa niyo dhibaato ay ugu soo baxday lacagtiina halka ayaan ku bixiyay runtii aqliyadan aniga laftarkaygu waan lahaa qof walbaana uu maraa marxaladan ashirkii ugu weynaa in ka bartay aqliyadan waxa weeyaan lacagta ama adiga ayaa mustaqbalka dhibaato iman doonta xal ugu keeni doona ama lacagta ayaa iyadu inta ay dhibaato hadda samaysato ku bixin doona ashirkii ugu weynaa in ka bartay waa taa sababta aan sifooyinkan aan kula wadaagayna wax kale ma ahan qofku hadii uusan ka warqabin xanuunkaya dhakhtarnama daweyn karo dhakhtarkaasna qof kale ma ahan waa naftaadu adigu ba daweyn kara waxa adigu tahay qofkuna haduusan ogeyn waxa uu yahay ama fikradaha uu aaminsan yahay uusan ka warqabin way adkaanaysaa qofku inuu isbedelo marka si aad u ogaatid ayaa sifooyinkan aan kugula wadaagay sifada saddexaadna waxa weeyaan fikirka aragtida gaaban dadka leh aqliyada faqriga waxa ay mudnaanta siiyaan ku qanacsanaanta muddada gaaban hadii loo soo bandhigo labada shayna midna ay tahay mid mustaqbal midna ay tahay mid hadda taagan badanka waxay doortaan mid hadda taagan ee ay markaaba qaadan karayaan dhibaatada ugu weyn oo qofku qabaan waxa weeyaan waa in uusan awoodi karin ama uusan xakameyn karin dareenadiisa lacagtu waa shay wata dareeno fara badan kaasoo qofku u baahan yahay in uu dareenadiisa awoodi karayo ama uu xakameyn karayo ugu yaraan sifada afraad isku kalsoonaanta hooseysa qofku marka uu san rabin in uu wax ka barto shay noloshiisa dhanba ay ku tiirsan tahay taas oo uu mar walba waqtigiisa u badan uu ku bixiyo waqtiga uu ku bixinayo shaygaasna uu ku waayiyo qofka uu jecel yahay familigiisa cidiisa ama asxaabtiisaba isagoo ka maqan waqti aad u fara badan qofka noocan lacagaha u soo hara ama lacagiisa u badan wax uu u dhiibaa oo uu u riixaa qof kale oo uu ku tuhmayo qofkaas in uu ka aqoon badan yahay qofkan uu ku raado walaalo lacagaha noogu shaqeey faa'iidadana waynu kala qaybsan doonaa hadii qof lacag u dhiibto oo ku tiraadid business aan ku shiraakoono in businessku faa'iidana yeelan karo khasaaran uu yeelan karo qofkuna uusan ku darsanin taas ugu dambaysta hadii uu businessku khasaaro ama businessku uu fail garoobo oo qofka eeda saaro uu yiraahdo lacagtii waad iga cuntay
guud ahaan qofku haddii uu rabo inuu dhaqaale yeesho waa lama huraan qofku inuu leeyahay kalsooni aad u sarreysaysa balse haddii uu qofku leeyahay kalsooni hooseysa qofka waxay gelisaa ugu dambaysta jeel waxaana laga yaabaa qofku inuu ku nool yahay adduunyo xorriyada oo meel walba tegi karo laakiin caqliyan iyo dareen ahaan wuxuu ku jiraa jeel taasna waxaa ka dhigaysa kalsoonida aad ka hooseysa ee uu qofku leeyahay sifada shanaad caqliga ku tiirsanaanta qofku inuu yeesho sidan indhaha dawladda ama indhaha qoyskiisa qofku inuu ku tiirsanaado waxa la yiraahdo dawlad iyo qoyskiisa qofku inay indhihiisu arkayaan in ay kaliya arsaaqdu ka soo gasho in ama dawlad lacag ka soo gasho ama in qoyskiisu ay caawiyaan haddii uu rabo qofkaas inuu guursado wuxuu yiraahdaa waan guursanayay hal itaakuleeyo caruurtii baa iga biil la'aan biil hal isiiyo niyoon adduunyada unba wala lagu yahay caawi wada caawin karasay iyo waxyaalo la mid ah haddii xataa qofka noocan fursad la soo bandhigo ma awoodi karay inuu qaato waayo maskaxdiisa wuxuu bartay waxa la yiraahdo caawimaad wuxuu ka doorbidaa qofku wuxuu gididi karayo in ay ka fiican tahay waxa dibadda looga soo dirayo ama wuxuu in adeerkii ku caawin karayo ama waxa dawladiba ay ku biiliso haddii uu shaqaystana lacagtiisa u badan waxay ku baxdaa waxa la yiraahdo balwadana ugama jeedo oo kaliya jaad iyo sigaar ee sidoo kale waxaan uga jeedaa lacagna dar ku bixisid fara badan makeup fara badan inaad ku bixisid aroosyo iyo waxyaalo fara badan oo muhiim ku ahayn inaad lacagaha ku bixisid ama kharashaadka ku bixisid dhammaantood waxay aan ahaantii ka yihiin balwado qofkaasna haddii uu caawimaadka noocan uu heli waayo dhammaan qoyskiisa dawladda cid walbana wuxuu ku eedeeyaa in ay yihiin tuugo iyo dad aad u gacan adag sifada lixaad maarin la'aanta lacagaha qofka caqliyada faqriga leh maba lahan wax aqoona waxa la yiraahdaba maarinta lacagta حتى هدي أد صوب بديكتد أو ترادد وركاليو برو وحن أضغطي أو بدن أتكون بحنسو برو السيد الله ماريو وحكوج شوابي وحيتاي ووحن مرة بإنه وقت جيجي إسكالومي لعقته وحول شيطان وينك سوقلي وينك هابحي شينا هدان لما رين كرين لما ما ملكرو والسيد الميرو دشيء أو بيبيا وحضو بعنتها إن هاد ماريسيد سي أدو ما مشي وإن هاد قيميسا أو تراد السيدان يسيدان وحسامي سي أد ما ملكي سي أدو يلتيد sidoo kale qofka noocani maarayn oo kaliya kama dhin sidoo kale waxa ka dhiman xirfadooyin u sahlaya qofka in uu awoodi karayo inuu lacagihiisa maareeyo qofkan ugu dambaysta u sahasho inuu qaato go'aan aad u qalqaldan sida inuu lacagihiisa balwad uu ku isticmaalo ama inuu ku bixiyo waxyaalo mustaqbalka aan faa'iido u lahayn anfacan u lahayn qofkan noloshiisa iyo familigiisa iyo qoyskiisa lacag iyo hantina u dhisay yana la iloobin waxa muhiim ah inayna xasuusano qofku in uu yeesho aqliyad faqriyad in aysan ahayn عقلي هوسية أما كرتدر يوحي لمدا السيدو كلا أكو حدن تاي قابك قفك لو كوري بالشدة وكل حكوري نظام كوح برشة أولها فرصتها دقالة أو هلي إيه نظام كدولة ديت قفكونا هدو وصن جوج النوع أنا وصن كجرح بحين لبضن منا تونا ويأذك تاي أما قفكو وعقل جيسن كش بفكر ذوين كدول وح بالشديسو أما نظام كيسو أي أمسينين كواسو قدام بيستن قفكو وسهل كرا إنه يشو فكر هانتي أما قفكو وحسودي إن عقليس يشركيس وجيو ملك دوين ماشى أو حد وكنولي كسورتشيت كعقلية فقرية وحويا عقلية هذا تنمدا أنا بقول وحن مرة فربنا إسويدي محا قفك تاجر كأكسي دقون مرور بيوسي هذا تاجر ما تقانا وح إيصاب حي إنه قفك يشو عقلية هذا تنم وحي كحرن تاي لحدن ككون إمال ورب مسكحديسو أي كشقيسينسو لحدن ككون أفكر ضد أو بدن كودو أيهين فكرته هذا سينما حتى بعضي ونسي أدو قاعد قفك فكرته أسهش قفك إنه نقضه قف تاجر فيديو عن كسمي أيان هالكو صار دقيقة دوناي داوشوان